بسم الله الرحمن الرحيم ومركله iyo barnaamijkeeni suugaan iyo sooyaal oo barnaamij ka warrami doona suugaantii hodanka ahayd ee la tiriyay milaygii hore iyo tatooyga la joogaba oo aynu sidaynu soo aragnay aynu ku soo martiqaadnay halabuurka daada yar leh ee suugaanta cudoon ee aragtida hufan iyo sooyaal oo wali aynaan taaban laakiin barnaamijyada inoo degamsana kalkana waxaa inoo martiya walaal kale abaan yaasiin maxamed faarax yaasiin madaale oo halabuura suugaantiisana in badan aad maqasheen bal yaasiin aynu naan horta yaasiin oo kusoo dhawow barnaamijka aad baan ugu dhowahay walaal mawlidaadan biixi iyo qolada kale barnaamijka runtii soo agaasinta iska xil saartayba aad baan idinku mahad celinaya waana dhawey walaalo si kooban marka loo yidhaahdo waa kuwa yaasiin madaale kolley mawlidow kolley su-aashaasi inta ugu faraha badan leh marka waraysi ama barnaamij la qaadayo sidan oo kale si kolley qofka barnaamijka soo gudbinaya ama barnaamijka martida ku haya bulshada yacni barnaamijku gaadhayba si laysu baro ama laysugu soo dhaweeya runtii waa su-aal badan oo waa laisweydiiyaa laakiinse kolley marka dhallinyarada la joogo qofku taariikh nololeed dheer ka sheekayn maayo iyo waayo fara badan oo soo jirfaday yaasiin maxamed faarax wuxuu dhashay sanadkii 1929 waxaan ku dhashay gobolka saaxil degmada sheekh baan ku dhashay intii ugu faraha badnayd waxaan waxbarashada ku qaataan ku barbaaray magaalada Hargeysa aan malcaamadaydii dugsiga hoose dhexe ilaa dugsiga sare xitaa jaamacadda aan ku qaatay iminka waxaan kamid ahay ardayda wax ka barata jaamacadda Golis waliba ku jirta semesterkii ugu dambeeyay sanadkan ka qalin jabinaysa haddii Allah wadaro ogolaado waxaan dhigtaa kulliyadda social science ama culuumta bulshada gaar ahaan development studies ama horumarinta واتهياسين suugaanta curinteeda ma hibaadu leedahay oo waa deeqa la ku siiyey mise waxaa jirta hidaysi oo cid ka mida qoyskaaga iyo halabuur hore lahayd waad mahadsantahay walaal mawlidow kolley waa saad sheegtay suugaanta inta ugu faraha badan waxa lagu arooriyaa meelka soo jeedkeeda tahibada oo runtii ta qofka bini'aadamka ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala hibooyinka kala gudbisan bini'aadamka midba qofba hiba gaar galiyay inay kamid tahay hiba kamid ay tahay oo sidaas oo kale yani qofkii ilaahay hiba u siiyay runtii uu gabiyo ama maansoodo ama uu tixmaal yahay sidoo kale waxa lagu arooriyaa ama loo celiyaa hiddo oo kale qofku qoysku ka soo jeedo kale inay qoys gabay ama qoys suugaaleed uu yahay waxa sidoo kale laga xidhiidhay waxyaabo arrin kale inta faraha badan waa hawli keentay anigu runtii ma qabo labada inay jiraan ama inta ugu faraha badan la dood baan ka qabaa hiddaha iyo hawsha labadaba waayo waxaan sidaa u leeyahay suugaan yahano fara badan baa taariikhda suugaanta Soomaalida soo maray oo caadiyaha kala dambeeyay lahaa in haddii soo qaadna Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan Raagowgaas Qamaan Bulxan Cali Dhuux Ismaaciil Mire iyo ragii kale la halmaalay kuwan dambe casriga ay markaa taraawiya ay bagaraansa jiilkan imka suugaanta aad moodo ugu waaweyn yihiin imka dhammaan raggaas haddii bahasha waxaan odhan lahaa haddii bahasha hidda lagu kala dhaxlayo dee dad bay dhaleen oo rag iyo dumar leh oo tafiir baa ka beerantay tafiirtii ka beerantay ee rag iyo dumar bale kuway dhaleen kuway sii dhaleen ama kuwa xidhiidhka yani qoysnimo meelun ka soo gala hiddaha meelun ka soo gala waxaa la odhan lahaa dhammaantood gabi lahayn dad wada gabya bay noqon lahayn kuwaasi taasi ma dhacdo markaa sababtaa daraaddeed anigu waxaa dhadaan iyo haw inta ugu faraha badan la wixii dal la yiraahdo lagu kala dhaxlo sida xoolaha loo kala dhaxlo qofku markuu dhinto ma jirto oo la qaybsado dhaxal lagu qaybsadaa haddii taasi jir la soo kale waxa soo bixi lahayd dadka faraha badan la taariikhdu sheegtay dad baa jira deemka jifooyin dhan ka tagay dad fara badan ka tafiiran yihiin marka reerab dhan baa soo bixi lahaa reera gabay la yiraahdo oo rag iyo dumarkii ka soo baxaaba oo isagu gabyoon oo wada abwaana marka taasi way jiri lahayd hawli haddii halka keento anigu waxaan odhan lahaa waxa laga yaabaa hadii adduunyada gibigeeda iska deem karta daar imtixaan iyo hawla adduun hawle kama dhamaato waxaad arkaysaa dee waagi baryaba mid ay hawli la soo diristo ilaahay dadku imtixaanayo moogtay dadka waa loo kala hawl yareeyaa haddana waxa laga yaabaa hadda tiradan iyo haw in ma gabi kartaa ama waxa kan ma ku cabiri kartaa dareenkaaga ama mushkilada tanta ku haysa kugu xeeran ma ku cabiri kartaa suugaan inaan laba meersi suugaan karin baa dhici karta waxa laga yaabaa midana hawliba la dirsan isaga ilaahay kuba imtixaaninba waxa laga yaabaa 500 oo meersi mucjisayn u dhiso marka taana inaan ku imanin ayaan adigu qabaa laakiin takriyan la xiriira waa hibada la xiriiriya aniguna runtii hibadaas uma tirsanay way jiraan qoyskayga qaar gabiya sida abtiga oo kale laakiin haddana anigu xuma la xiriiriya tayda hibadu ma la xiriiriya inay tahay deeqa la ku siiyay aadiyaad
waa tahay yaasiinow markii koowaad ee aad istiri alla ilaahay waxbaad curin kartaa tooxday doontaba hala ahaatee imsadiba mawlido kolley qof kastoo ilaahay hibo uu geliyey hibadaa ku jirtaa marun bay runtii dibadda usoo baxdaa inta ugu faraha badan lena hibadu waxay dibadda usoo baxdaa waxyaaba cariya markay hesho ama waxyaaba dhaqdhaqaajiya ama waxyaaba dhiirigeliya qofkana kolley mar walba isaga waxa ku abuuran ilaahay ku abuuray dareenkiisa iyo niyadiisa ku jira inta ugu faraha badan lagu jecel yahay wuxuu jecel yahay inuu kaaga dhawaado wuxuu jecel yahay dadka ka sheekeeya inta ugu faraha badan fiilkan ku jira inta ugu faraha badan leh inuu waqti la qaato ugu yaraan waqti haddaanu la qaadan karay barnaamijyo ay duubeen ama barnaamijyo ay leeyihiin oo kale inuu si ula xidhiidhi karo anu marka waxaan ka mid ahaa dadka suugaanta jecel anigu ilaa ardaynimadaydii waxaan xasuustaa markaanu madrasada dhigan jirnay madrasadu daabuur bay lahayd dabeetee daabuurka waxaan jeclaan jiray ardayda qaarkood xadiis bay ka akhriyaan qaarkood khudbad bay soo diyaariyaan qaarkood qur-aanka ka akhriyaan qaarkood nashiideen bay ka akhriyaan laakiin waxa ugu faraha badan leen anigu aan ka akhri jiray waxaa ka mid ah gabayada waayo gabaygu dareen gaara buu samayn jiray waan xiisayn jiray xitaa gabayga anigu dhibiguma qaadan jirin oo gabayga intaan soo qaado 2 jeer haddaan mariyo ama 3 jeer haddaan indhaha mariyo waxa laga yaabaa saa ku xifdisanahayba marka baasha jacaylkeeda igu abuurnaa laakiin sida rasmiga goortaan anigu u bilaabay ama aan runtii curinta waxyaabihii ugu horreeyay dee magarasa macna gala ee aan idhaahdo waa maanso ama waa tix suugaana 2011 ba ahayd saameysii fogeyn waqtiga waxaan dhigan jiray dugsiga sana waqtiga dhigan jiray waa tahay wax ma ka xasuusatay ereyadii koobaad ee afkaaga ka soo baxa ee qaab maansa leh niyahow kolley inta ugu faraha badan dhalinyaradu markay suugaanta bilaabayaan waxaa la dhahdaa 2 mawduuc bay ka gabiyaan waa tahay weliba mawduuca ugu muhiimsan inta ugu faraha badan ka gabiyaan waxa weeye mawduuca jacaylka waa tahay waxaa la 2 sababood labadaba way sababaan waa midda koowaad ee kulli qofku markuu xoogaa dhalinyarada yahay weliba dada markuu magarasa kala guurka ku jiro xilliga magarasa xoogaa carruurnimadii ka soo guurayo dada xoogaa dhalinyaranimadana uu guuray marxalad kala guur ku jira marka marxaladda kala guurka inta ugu faraha badan leh xilliga dhalinyaradu jacaylka waxa magarasa sheekadiisa inta badan ay ku badantay moogtahay xoogaa yara xiiseeyaan yara daneeyaan marka xilliga dhalinyaranimada xilliga waxa daa ahaan taasoo kale jacaylka waxoogaa yara daneeyaan macna gaar u sameynaya macna gaar u sameynaya wateeda labaad ee waxa ku qaada ayagoon inta badan mawduuc kale weyn ay wax ka yiraahdaan ama ay ka gabyaan aan u muuqan karin ama aan u muuqan moogtay marka ni waxaad moodaa labada mawduuc halka mawduucaaba inay teedu kale gedisanaydo tixbay bariga ahayd marka baarcada badda baarcadaha baraha suugaanta marka tixdaasi waxay ka hadlaysay mushkiladda qaadka uu bulshada ku hayo ka waa wixii koobaad aan hindisaanigu ama aan dhisaama aan sameeyo aan maanso ula niyoodo iyahow maansadii imika ma hayo waxba ka xifdisani kulley marxaladkii dambe dee dubahamin fara badan baan ku sameeyeyo hashi waa laga yaabaa inaan dhowr jeer oo kale aan ku noqday baasha aan sidii aan u sameeyay berigaas inaan ahayn laakiin taa qaadka hedo weli waana waxba ka xifdisanay imika taasay igu horreysay welido waa tahay hal abuur kastaaba wuxuu jecel yahay inuu awrkiisa cid ku farur xidho yaasin madaala ahaan hal abuuradii dee hore ee 1900 kii noolaa iyo kuwii hana qaaday 1960 meelahaas Hadraawi iyo Cabdiqays iyo daragii ka horeeyay qamaan bulxan iyo labada raac dad ma jira aad suugaantooda higsato oo tirada alla ilaahay hebel oo kale waa inaad halkiisa dhigtaa horta qof kasta oo hal abuur mihnadu ku jira wuxuu doonaba hal abuure waxa jira dad inta ugu faraha badan leh oo ku dayanayo oo hibadan ugu horeeyay oo uu ka dab qaadanayo ku hiranayo runtii yoolkiisa iyo hiraalkiisa qayb ka mid ah wuu isleeyahay niyahow halka hibil tiro ma gaari kartaa halka hibil ma dhadhaweyn kartaa halka hibil haddii hibil waxa keenay wax la mid ah wax u dhow ama waxa hibil halka uu gaarsiiyay adigu ma sii dhaafin kartaa hal abuurka suugaantu ka sunbul halmaala runtii raga gabi jiray waqtigii ka horeysay 1960 ama 1940 ragii gabi jiray ee kala gedisanay suugaanta soo maray haday tahay jiilkii Sayyid Maxamed Cabdullaah Xasan iyo haday tahay jiilkii ka horeeyay inta taariikhda mas'uuliyalka ee naga soo gaadheen suugaanta bariga xal ma qori jirin wax fara badan baa lumay laakiin intay soo gaadheen runtii waa rag runtii dhaxal fara badan oo maguuraana ummadda uga tagay suugaantuna cilmi iyo macna fara badan bay ugu fadhidaa runtii ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba waxa taariikhdeedii ku jirto aqoonteedii ku jirto ilbaxnimadeedii ku jirto runtii ay jiilka suugaantu siban u wada daneeyaa bahasha siban u wada jecelahay laakiin waxaad moodaa dad gaara
oo aan suugaantooda si gaara aan u xusho ama si gaara u usho dabcan salaan carabay oo kale rabbi naxariis jannaha ka waraabiye waa niman suugaantiisa si gaara aanu jecelahay weeyaan iyo rag kaloo qamaan bulxan baa ka mid a iyo rag kaloo la halmaala laakiin jiilkan dambe ee waqtigii dambe ee xornimada la helay dowladnimada fankuu casriyoobuu magaalada soo galay suugaantii ay warbaahinta ka faa'iidaysatay ama qaab masraxeed uga faa'iidaysato ama qaab gabay iyo maansaha uga faa'iidaysatay ama qaab silsiladeed ha loo dhigee waqtigan dambe aad moodaa jiilkaa dambe aniga inuu aad i raadin weyn ugu leeyahay hadday noqoto hadraawi yamyam gaariye iyo ragga kale la halmaala ibraahim gadhle raggay ugu saamaynta badan lena runtii waxaa ka mid a ilaahay cilmiga iyo caqliga iyo curintaba ha u barakeeya iyo cibaadadabe maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaa sidoo kale ka mid a ninkii la odhan jira allaha u naxariisto isagoo geeriyooday 2003 baan filayaa meelahaase cali mooga geedi marka raggaasaa ka mid a buuridow aniga raggi aad yani halabuurkayga wax fara badan igu dhiirigeliya yani markaa suugaantooda yani dadka dareenkayga dhaqaajiya moogtay waa tahay muddadaad waxa wey wax oranaysay horta waa kooban tahay haddana intaad wax oraysay way badan tahay oo dee waktiga iyo waxa kala duwan markaa tidhi bal maanta waxaan horta marti kaaga nahay 3 maaso oo ka mid a suugaantaada maansada la yidhahdo muddici goortaad curisay sababtii kaliftay inaad kaa soo go'do bal si kooban kolley maasadan muddici maasadan waxay curatay 2014 baa curatay bartamihiisii maasadan muddici waa runtii waa maaso garnaqsiya waxaa ku garnaqsanaysa yani bulshada garnaqsanaysa bulshadu waxay muddici ku tahay la garnaqsanaysaa yani qof kasta oo mansabkeeda ama xilkeeda usoo qaashaartay inuu qabto waa mansabka siyaasiga ah ummadda bulshada mujtamaca marka laga hadlayo madaxweyne ha noqdo xildhibaan ha noqdo wasiir ha noqdo iyo inta kale la halmaashay xilka lagu amaanaystay maansadu waxay si kooban u tibaaxaysaa xag hore bal madaxtinimadii anigu waxaan u aqaano ama madaxtinimadii macna ahaan waxay tahay aragtidaada waxay sheegaysaa qof kasta oo madax noqda ama xilka ama mansabka maruu lagu amaaneeya oo soo mara yani taariikhda 2 baalun buu ka galay inuu baalka madow ka galo iyo inuu baalka quruxda badan ee dahabiga ka galo baalka cad inuu ka galo labadaa midun qof kasta oo tagrifal sameeya sidoo doonaba ha u tagrifalo awood ha ku tagrifalo hantida iyo dhaqaalaha ummadda ha mas'uulso ha ku tagrifalo magaca uu si xambaarsiiyay mansabka ha ku tagrifalo yani hadii adduunka haduu maxkamadda bini'aadamka haduu waajihi kari waayo yani inay jirto meel kama dambaysa oo taylahaya wacid waliba waajihaysan ka baxsan karin qaybta ugu dambaysa runtii warko qaybta ugu muhiimsan waxay tibaaxaysaa waxaad moodaa nolosheennaba campaign iyo doorasho inay gashay loolan siyaasadeed inay gashay moodaa wax kale bayna ka shaqeyneen bal dadka inta ugu faraha badan ee bulshada campaignka ku wareeriya ee xilka ama mansabka siyaasiga ka doonaya godololooyinka iyo qabyada maanta nolosheeda ka muuqatay la rabay inay gufeeyaan marka kuwaasay tibaaxaysaa ay leedahay tan baa jirto marka qabyooyinkaas oo dhan marka maxaa iga qabyaa hawlbaad maxaa iga qabyaa hawl waa kii hadraawi lahaa wax ka qabashadeeduna qayrkay ku xiran tahay marka maansadan bilaabay xoranaysaa minshaar afweyn oo danta lagu mihiibiyo mindi lagu gabraartiyo gudin lagu maxafsado ninka mooday taladow xilku waa ma dhaafaan meertada adduunyada qofba maalin saanyado ninka lagu mariimana ama waa la mahadshaa waxa lagu majeertaa gobonimiyo maamuus ama wuxuu macaashaanaanays madow iyo gocashiyo mag iyo qaan lagu dhiga maguurtada arartiyo mulaaxdiyo maahmaahda gabayga iyo murtidiyo tusaalaha miisaanka loo dhigo mahurtada xaqiiqada waxaan ugu maldahayaa dadka macanka geesiyo danta moogaheediyo sii muuqda geediyo soo muuqda dhagax iyo miidaamo dhegal iyo madalootiya u garo inta muutaha shirba maalinaadee xusbiyada ku meertee mabda'ooda garatee qaradiyo marduufka iyo malafsiga ku dhacantiyo ninka mooganow dhigo maangaabka liitee miisaanka qarannimo isagoon macnayn karin duubkiiyo martabadiyo ku masayre taladow taariikhdu waa marag ninba wuxuu magaabshaa midhaheeda goostaa mahadhada waxa uu galaa maandee qirmaan iyo madaxnimadu waa igarhmaatida dalnaydiyo makastiyo agoontiyo maxastiyo curyaanadu bulshaday u mudan yihiin maqasheedu tahay oo laga wada masruufee ninka meherada qaran musuqmaasuq geliya gulqaniin ku maalow maxakabadda aadmiga haddaan lagu marsiinoo xadhiggii maroorsamo madaxaaga laga qorin midaan ciligafayn iyo rabitiisu kuu maqan mulkiga iyo guddoonka iyo masiirka iyo aayaha musharaxa u baayow hadduu ruux mateli kara milaygiyo duruuftoo miyir iyo aqoon loo maaraynta hawshiyo hanan kale mas-uuliyad damiirkaagu mudan yahay hadduu maanfayow iyo maskax lagu nagaadiyo kugu jira kasmigani
mashaqada iyo eelka iyo mililka iyo boogaha bulshadaada meersaday haddii kuugu mudan tahay sida noogu maqantoo meesheeda kugu taal maxaa tala murkacatiyo xujo maara weydiye halxidhaale meeliyaal dhallinyarada madhatee maskaxda iyo garaadka iyo muruq iyo luddoodii miiroogu laastee maandooriyaha iyo sunta lagu maduuree lagu miday daroogada waxaa tahay ninka u maqan maansaarta nacabka iyo magliga iyo hootada kuwa hiilka mawdee mawjadaha badweynta iyo socodka iyo masaafada lagu moora duuga magansaday gumaystaha waxaa tahay ninka u maqan baahidu masiibiyo murugiyo dhib weeye miyi iyo magaalaba qubanaha miciinliya inta meehanowdee macalusha lagu sabo waxaa tahay ninka u maqan garashaan miskeedina madiweeye teeniyo maalka iyo dhaqaalaha lagu maalay xagartee laga maray horaadada waxaa tahay ninka u maqan muusanowga ciidiyo deegaanta muruxdee miicidii galoolka iyo dhebig iyo madheerhkii wixii damal milgel ahaa lagu jaray madiishae mucsurka iyo gawaanta waxaa tahay ninka u maqan hadafkiiyo majaraha meeleeyo uunkee mahashada qulubtiiyo milicsiga hiraalkiiyo himilada makalantee maangaabka mehershiye manaxaanku guursaday waxaa tahay ninka u maqan mintid iyo dadaal baa miiqaamka gooyo tacab iyo muquuna muuneeyo noloshee magaceenna aasmiyo sharafteenna milantee maydhaantay dayradu waxaa tahay ninka u maqan waa tahay waa tixaada qurux badan oo dhismaheeda marka dee maase la qiimeynayo ama dee hal abuurka tayadiisu ay muuqanayso siduu ereyga u dhisay ereyadu siday isu leeyihiin ujeedada siduu abaaray hadalku siduu u xubnaysan yahay fikradda guud ee maasiduu tabinaysaa dee siday bilow ilaa dhammaad isu haysato waa tix qurux badan oo dee ninka siyaasiga ee ummad xil u qabanaya ay tahay inuu dee ka dhigto majare dee ku hagta sida san kanaduda jabka waxaa kaloo jirta layidhahdo maase layidhahdo agoon horta agoonkaas waa kuma mawlidow agoonkaas horta waa afka weeyaan maansada agoon waxay ka hadlaysaa afkay ka hadlaysaa bulsho weliba waxay daryeeshaa waxay dhowrtaa waxay ilaalisaa waxay dhismihiisa ay ka shaqaysaa waa afkooda weeyaan iyo kobcintiisaba afka wuxuu ka mid yahay hantiyaha ugu qiimaha badan lee bulshooyinka ilaahay adduunka ku abuuray ay bulsho kastaaba gaaru leedahay afku waa weelkay bulsho weliba ku kaydiso wax kasta oo qiyama oo iyadu ay leedahay ama wax kastoo macna agteeda ka samaynaya agteeda macna ka gooya waa weelka ay ku ilaashatay ku kaydsato waa weelka dhaqanka lagu ilaaliyo waa weelka bulshadu taariikhdeeda ku ilaashato waa weelka ay bulshadu diinteeda iyo caqiidadeeda ay ku ilaashato waa bulshadu yani wax meel weyn runtii ugu fadhiya bulshadu waa baadi socda koowaad ee kaga soocantay bulshooyinka kale qeyrkeeda ama dhigeeda taa macnaheedu waxa weyn haddii yani afku meesha ka baxo yani sumad kasta ama baadi sooc kasta ama sawrac kasto ay dadkaasi lahaayeen meesha uu ka baxay taariikhdoodina way duntay ilbaxnimadoodina way duntay oo ciddaa marka ay afkooda ku hadlaan ama afkooda ay qaataan bay la mac noqonayaanoo dabeetana taariikhdooda yani kuwaasay ku dhex milmayaan ama ay ku magaranaysayo yani jiritaankoodu saasuu ku suulaya lagu baadi soocaa dadna weedha suganiyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya cabdi cali weyd markaan yahow afka inta ugu faraha badan leefkeena waxyaabahaad ka naxaysa waxaa ka mid ah darxumo fara badan buu qabaa waa tahay darxumooyinka faraha badan leh waxaa ka mid ah يعني نظام كوجوين إنه هيصنع ما تنافق إنه إلى اليوم هيد والدولة دستور كنا قطب كم يدو حول جاية أفك كبار الدل كان يضط كان استعمالين إنه شيء أفك الصومالي جو يعني وقطب كشنات بقى ها هذا نتاوي حبورين يسحدنا هذا نتاوي حبورين سير الدولة أفك كبار استعمال شويها أفك إنجليش كا ويسقون أف أجنبيين وياي وحيابها الله يبصو حكم يعني إمك مجالد إن هذا صار لحمرته بور كستا أما إن أما سكالة تبالياش أما يعني magacyada ku qoran dukaamada ku qoran ama meherada maqaaxiyaha laga cunteeyo ku qoran ama booshariyada islaamka qudrada ku iibin xawta ku iibin ku qoran dhamaantood waa wada English weeyaan wada af qalaad waa tahay waxa laga yaabaa adigu mawlido dadka Soomaaliga oo dhaqdhaqaaqa barnaamijyada suugaanta duuba ama macallina ama wariyaal qorani oo xalay xadafka wuxuu ka qaban weeyeen warafka anigu ma dawlad baanahay doorka dawladda leh doorka dawladda leh dawladda doorka leh dawladda ka mamnuuci kartay dawladana wax ka qaban kartay dawladdu waxay awood u leedahay inay tiraado war waxaan oo kale qof kastaaba inuu magac Soomaaliya waan ku qortaade haddaad magaalooyinka Yurub ku yaala haddaad Washington iyo Birmingham iyo New York haddaad samatay kuwa ka tanaasulo gaaroodiya tacarbaro Arabsiya iyo halaya iyo aw barkhadlaya maxaa ku diiday salax iyo caynaba midhanaad ku qoraato waa tahay waxaad moodaa taana inay doorkaana ka gaabisay baad moodaa waxyaabaha nasiib darrada waxa kamid ah ardaydeena imika kuwa ugu yaryar heerka ugu hooseeya xitaa marka iskuulada caadiga fasalka koobaad marka lagu qoro xitaa in lagu dhigto English in lagu dhigto ama af qalaad in lagu dhigto afku doonaba ha ahaadee
afka iyo dee aqoontuna way kala yihiinoo afqalada aqoontu miya afqalada aqoontu miya waxaad moodeen halkaa naga gashay waa tahay marka maansadu horta waxyaabahaas yacni baahiyaha faraha badan leh iyo gudaloolooyinka faraha badan ee maanta ka jira nolosheena iyo tabaalada faraha badan ee afkeenu tirsanayo taasunbay ka warramaysaa waa tahay waxay odhanaysaa afkayga wareentiyo waran iyo abley iyo maxaa eeba kugu mudan ama weerar kugu maqan iyo guluf abaabulan nimaad soo anqarisoo igarhkaaga maaloo libintaada ku aflaxay muxuu eeda kaa galay dhurwaa kuga adeegtiyo arba kugu qadhaabtiyo abris kugu gabaartaa maxay awrantaadiyo galladaada aaseen marna ayradaadiyo ramadkiiyo irmaantiyo ugubkaaga kuu dhalay intayba kuriyayeen ku abaydin dhaliyeen marna iimahaaga iyo isha aad ka nugushahay intay kaa abbaareen xankaaga wariyeen urugada ku haysiyo warkutaalladaadiyo eelkiiyo tabaalada adhexdaada dabatiyo tabcadiiyo ihaanadu waa eed sokeeya ayaankaagu darana abdadaadu ba'ana anigoon bahdaydiya isirka iyo haybtiya abtirsiinta garin baan ergistaa dhigaayoona saagaa marti u ahay waxaan ahay qof isho ummadaha dhiggiisa ku anbaday midoodo ereyada qalaalood xirfad iyo aqoon iyo ilbaxnimo ka dayayo kuwaas qoobay awdalan baradiyo ardaagiyo eregiyo rugtiisii kutub laga irdheeyo abhiyeen dadkiisii sayixiyo allaa badayo fadiyo dabayshee adigoo aradan baan afafgale hugoodiyo udubkiyo dhigtoodiyo aslaya rarkoodana qalkooda bilaya adigoon goblaminoo owtiyo xabaashiyo weli iilka lagu dhigin ayaan aarankaaga iyo ehelkiyo ciddaada dirkashada bidaysay abaalkaaga gudila orobiya gareegiyo afqalaad ku ababshaa adigoo alkumanoo dhidibkaagu adagyo murtidaadu ugubtoo ifka haybad ku lehoo nacabkiyo addoonsigu weligood itaal iyo culidaarmi kugu jebin ubadkiiyo dhashaada intay kaaga exdaan ingiriisi door biday dunidiiyo ayaamaha ooshiya degsiimadu dhulka oogadii siyaaradkiiyo berriga tahay afba wuxuu ku eertaa garab iyo ilaaliya gaashaan ka eega siidhkiiyo iniintiiyo inta laga abqaalee amarkiisa sileetee ku adeegta noloshee agoon iyo rajaatay ummadii ku curatiyo aabbihiiba nooliyiin urur iyo shan guuto ooshoodu siman tahay adigoo ka beermoo magacooda kaysiran haddii looma ooyiyo madioodan lagu baday ololaha ku riiqiyo gardarradiiyo aabiga kuu qoray ulaa iyo utintaada yaa qaba jabhadaha ku aynabay inkastoonan eedaha amba gacanfiyow iyo kaasidan af nabadeed waxaa kugu itaalsaday aargooyo nacab iyo nin inkiray wixiisoo magaciiyo astaantiiyo jiridiiyo ahaanshaha qofba lagu aqoonsado kaynkaala sheegto orkalaala door biday iidaanka hadalkiiyo murtidiiyo aftahanada runta lagu aloosiyo isagoo abwaan raba afgaroon cid magansaday ilaalada xareediyo isagoo ogbaad raba omas iyo kulayl iyo nin abaar ku geediyey intifaaca noloshiyo libintiiyo awoodaha aadmiga ku baaniyo isagoo aqoon raba jahlinimo ardaa galay nacas iyo ardaal iyo ahmal lagu shaqaysto gobannimada iibsho gunnimada amaahdiyo orgabi rabaystaa ku wada arrimiyo ubucdaada loogto aayaha garreygalay taasina waa agoon waa runoo dee afka haddaan ummaddiisu u kaceen afkaas ugu dhintaa waanu dhadhaa aad iyo aad waxaa jira tix la yidhaahdo warla warla yaa kala warla waad mahadsan tahay mawliidow tixdan warla waxaad moodaa horta mawduuca dhinaca dhallinyarada inu xoogaa iska yara istaagaynaa markaynu dhallinyarada leenay dee waa kolley waxa wey arrimaha jacaylka intaan guursano iyo qolyahan qurba joogto inta ugu faraha badan ee dhallinyarada waddanka joogto qolqol joogtahay aad bay uga cawdeen weliba dhinaca jacaylada waxay nimankaas inuu dhactooyo fara badan bay nagu hayaan qoladaasun maaha xitaa qolada siyaasadda ama qolada hogaanka siyaasadda xusbiyada iyo dawladda ku dooraba ha noqdee waxaad moodaa way ka cawdaano tusaalaan xusbiyada mucaaradka ah oo kale marka waddanka dee gudihiisa la joogo waxaa laga yaabaa ragga hawsha ugu faraha badan leh ama dhididka ugu faraha badan leh ka dhace sanadka 5 sano dhan halgamaya ama 10 sano soo halgamaya waa niman waddanka jooga weeyaan dadka waxaa laga yaabaa xusbigu markuu ku guuleysto wixii raggii soo halgamayaba inay dadaalkooda ku biyo shubta halba caad lagu liso niman xagga Yurub iska joogayo xaraska qaxootiga ka xarasnaa xitaa fursad waxbarasho helin ama haddii heliyana ayagu daayacayba waxaa laga yaabaa in dabatana golihii wasiirada ay ku soo wada baxaan iyo agaasimayaashii ay ku soo wada baxaan dabatana nimankii dabatana cidloon iska raadiyeen waniyo heedhe ma cidla dhig walba xidhan heedhe ma cidla ku dhabar jabay geela lagu heesi jiray nina dhaqashu ku dhex jooga nina dhuuro kugu dhabar jabay marka nimankii waxun bay soo arkayeen dabatana niman cidla ku dhabar jabay dheefteedina dabatana niman xagga kiima dabatana ay maalaan marka waxaad moodaa qolada qurbaha horta sibay dadku uga yara cawdaan qolada qolqol joogtahay ninba dadana tusaalahaan oo kale nin dhalinyaraha oo magaalada iska jooga ama waddanka iska jooga isagoo weliba qurba tagino oo dabatana xoogaa gabadhay muddo soo wada haasaaweyeeno ayaa dumarkuna marka qurbaha la soo qaatay la soo hadal qaaday waxaad moodaa xoogaa hadii ninkaas qurbuhu ka yimi
markii baasaboorka cagaaran baa bilaaya dabeetana markii waa carab laalaadinaysa niman saaxiibanahay oo reer Burca oo nin weyno wadaadana waxoogaa dan dhalinyaro hodooba dhalinyaradana waa laban iyo nin waxoogaa furfuran oo waxoogaa xagga dumarka waxoogaa ku yara fadalacado iski aad xiriirkoodu fiican yahay dina waa nin waxoogaa yara xidhan sida idoo kale dabeetana ninka waxoogaa habla ka yara oodani hadday mid soo gasho dee midhaasay wax walba kala weyn way tan sida meeshii wixii hawl ka gaadheen wixii taa mid ka magaranaysa iyo talabaad hawsha ka qabsan doonta iyo hawsha ka qabsan doonta waxaasoo dhan way isku xidhayaayo laakiin waxa laga yaabaa ninka xiriir fara badan leena waxa si dhib ku haynin marka nin waxoogaa magaranaysa rigiisa iskaga dhex jira ayuu ninka dhahaa adigu deetana gabadh bay wada haasaaween waxbay wada meel dhigeeno ayadoo muddadiiba iska dhow magaranaysa ay rabaan in arrinkooda dhammaystaan baa soo qurbaha ka yimiyo say doonta waxa uu dhacday ninkii inantii dabeetana ninkii waxay arrintii ku noqotay customer ka dilo Afrika ka dambeeyay ka ogeyd maaho inantii xaqii bay u dhoratay xaqii kale u dhoratay qurbaha ninkii baa dabeetana arrintii dee waxay ku noqotay gidaar ku soo dumay ad bay ugu cuslaatay way kaga adagtay waliba arrintiisu dhowr jeer igala hadlay waan dareemi karaa nimaad saaxiibatiino ani arrinta waliba markuu deesi ani dhaba kaaga la hadlaayo waxa dareemi kartaa yani dareenkeedu halku ka taagan yahay moogtay warka wuxuu noqday waxaan gudbayaa bariish kafuur wiilad ku yaal waana nin gabiya dabeetana waxa ku dhiniyo afkaaga ku ciilbax afkaaga ku ciilbax isfiro wuxuu dhiniyo waxaan rabaa wallahi taan maanta afkaygu inaan ku ciilbixi karaynin marka bal tixyar baan sameeyay marka isaga bal dareenkiisii wuxuu isagu dareemayay ka waramaysa iyo urkiisa su'aaluhu isweydiinayo iyo kala taganaanta yani kala taganaanta uurkooda waxa ka guuxaya labada afkaarta uurkooda ka hogmaysa isaga oo ninka dhacana iyo ninka laftiisa wax dhacay wala sugan soo arkeen dadna wax dhacay magaranaysa imaanta isugu hagaagana gabadhii gursaday labadan ninba geestu taagan yahay marka tixyara waxoogaa sarbeeba isaga badanta warlaal la yiraahdaa waxay oranaysaa waan bilaabayaa weligeedba aadmigu inkastoo walaal iyo gacal iyo tal wada yahay wacdaraha adduunyada maxaa weyda ciilkiyo warmahoodana isbaday maxaa welafka boobka iyo carta iyo wirta isbaday weyraxa nin dagan iyo damacnimo wata isbaday wagartiya istiidada ableyd iyo wareentada isu wada lisanayana allahaya wacaal iyo war maxaa ku kala maqan walaasha carartee horarkiyo waraabaha laga waabin waayiyo weeraha dadqaadka ah allahaya wacaal iyo war maxaa ku kala maqan wegan uu rag dhowrto jiilaalka weydiyo wabixiyaha raadkiyo laga jiray wadeeco wiilihii ku dhabar jabay ninka Washington iyo wadamada shisheeyaha laga soo wanshaafay warwarley ku meersaday allahaya wacaal iyo war maxaa ku kala maqan geeyada la weeshay durdurkiyo wiyeerkay waraabkiisa rabiileed inta looga waakaday wartaanay ka cabteen loo daray wadaantiyo wadarta u heshiisay jiraheeda wadatana allahaya wacaal iyo war maxaa ku kala maqan dad wadaagay caashaqa axdi weyna wada galay wajiyada jacaylka isku waafaqeen iyo wacad qabaha calafka intuu weerar soo dumo waqti kooban kala dira allahaya wacaal iyo war maxaa ku kala maqan sumalkiyo wankaygi ninka lagu wareejay waxyeesanayo waqalkiyo daruuraha weylaalis loo dhigay iyo wahanka quusta ruuxaygan weheshada allahaya wacaal iyo war maxaa ku kala maqan walwalada ciyaartiyo farxadiyo washiiriga ninku waa bariistiye ninka qaba walaacay waayuhu ka heshiye waridiyo tawaaladu wadnihiisa jiifaan allahaya wacaal iyo war maxaa ku kala maqan gacankii badweyntiyo webibaydan kala xidhay waayaba irmaantaad weelka u culaysee wareerkiiyo naftayday ha kullimin walaacii tabashada ka waantow waa caansa samirka waxyigiyo qoraalkiyo ha ka caban wareegtada wehelkayga maqanow adigana wanaag iyo waadiga ladnaantiyo inaad nabad ku waartiyo ducan ku wardiyaa waxa dhacay ka soo kabo taasina waa warla muurido waa tahay inaanta laftigeeda waxa la leeyahay hadii calafina kala qaaday kullu kalgacal waa jira xaggaaga ha wala dardaarmayaayo xogaa gabadhu waxay ahayd waxoogaa isagay ogolayde waxoogaa afduubka ayuunba meesha soo galay moogtahay qadarka ku wada